بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay 13 abriil 2020 gudida ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka COVID-19 oo gudoomiye u yahay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni waaxda wacyigelinta ee gudida oo gudoomiye u yahay waaxdaasi gudahoosaadkaas gudoomiyaha wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir jaamac waxaan la kulannay culimada Puntland oo halkan aan qaar kamid ah kulan kula qaadanay waxaana ka wada hadalnay halista iyo khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus waxaan kulankayagii ka soo baxay marka hore inaan isla garanay khatarta uu leeyahay cudurkaasi coronavirus oo adduunka halis ku ah si xawli ah ku fidaya waxaan isla garanay oo isla qirnay labadayada dhinac in cudurkaasi uu ku faafi karo oo hadii xaalad timaadana uu ku gudbi karo masaajida marka laga eego dhinaca tirada dadka imanaya iyo waliba isu dhawaanshaha dadku intay isu jirsanayaan si aan hadaba uga wada shaqeyno arintaasi sidii xal looga gaari lahaa arinta masaajidada waxaan isla garanay in xubno kamida culimada ay ku soo biiraan oo qayb ka noqdaan gudida wacyigelinta ka hortagga COVID-19 oo doorkooda qaataan waxaana aan rabnaa in arintaasi sida dhaqsiha ugu badan ay u soo dhamaato kulmo dambe ayaa jiri doona oo waxyaabaha intaas ka badanna aanu ku faahfaahin doonaa guud ahaanba maanta shirku intaasi ayuu ku soo dhamaaday aad iyo aad u mahadsantiin